Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaynu ka hadlaynaa qodobo ka mid ah qodobada uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jeclaado addoommadiisa. Maaha qodobadan aynu ka hadlayno dhammaan maba qodobada keliya Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jeclaado addoommadiisa, balse waa shan ka mid ah shanta uu Ilaahay ku jeclaado addoommadiisa. Haddaba si aad u dhegaysato shanta qodob, la soco ambaba daawo fiidiyowga soo socda. Dhegaysa. Al-Ixsaan, inuu ahaado qofku qof wanaagsan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey maa huwa al-ixsaan, waa maxay ixsaanku, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam taraah fainnahu yaraak. waa inaad ilaahay u caabuddo sidii inaad arkayso, haddii aadan adiguna arkaynin isaga ayaa subxaanahu wa tacaala ku arkaya. Sidoo kale ixsaan lama dhaho in aad wanaajiso qofku wanaajiyey, taasi waxaa la dhahaa mukaafa'a, abaalgud, balse ixsaan waxaa la dhahaa inaad wanaajiso qofku xumeeyey, taas ayaa la dhahaa ixsaan. Rasuulkuna taas ayuu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay wanaajin. Inaad wanaajiso qofku xumeeyey waa darajo aad u sarreysa lana siiyo dad gaar ah. Qodobka labaad waxa weeye at-tawba, inaad u soo noqoto Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad dembi gasho, sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inna allaha yuxibbu at-tawaabiin. Ilaahay wuu jecel yahay kuwa toobad keena. inna allaha yuxibbu at-tawaabiina wa yuxibbu al-mutatahhiriin. meelo badan ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ku sheegay inuu la jiro markasta kuwa toobad keena, sababtoo ah markay dembi galaan waxay u soo noqdaan allahooda subxaanahu wa tacaala. taas ayayna noqotay sababtuu Ilaahay ku jeclaaday. haddii aad tahay qof toobadkeen badan, waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jeclaado. waana qodob ka mid ah qodobada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado addoommadiisa wanaagsan. qur'aankiisa ayuuna inoogu sheegay, axaadiistana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu inoogu sheegay. qodobka saddexaad waxa weeye at-tadahhur, in aad isdaahiriso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku sheegay inna allaha yuxibbu at-tawaabiina wa yuxibbu al-mutatahhiriin. Ilaahay wuu jecel yahay kuwa toobad keena, sidoo kale wuu jecel yahay kuwa isdaahiriya. haddaba isdaahirinta labada dhinacba waa lagaaga baahanyay, inaad isdaahiriso jismi ahaan, sidoo kalena inaad isu daahiriso qalbi ahaan, siduu rasuulkeena iyo Ilaahayba subxaanahu wa tacaala inoo sheegeena. qalbiga waxaa lagu daahiriyaa dikri badan, salaad badan, inaad bixiso sadaqo badan, inaad acmaasha wanaagsan oo dhan qabato. waa waxyaabaha qalbiga muslimka ah nadiifiya, qalbiga bini'aadamkana xaadha. waxyaabahaas iyo waxyaabo kaloo badanna qalbiga waa lagu nadiifiyaa. jidhka isaga waxaa lagu nadiifiyaa weyso, balse qalbiga waxaa lagu nadiifiyaa dikri badan. qodobka afraad waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa addoommadiisa ku jeclaado. waxa weeye at-taqwa, waa inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato. maa huwa at-taqwa, waa maxay alle kacabsigu? alle kacabsigu wax kale ma aha, waa inaad u hoggaansanaato oo aad farnaato wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu Ilaahay ku amray, kana reebtoonto wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa reebay. qodobka shanaad aan ku soo gabagabeynayo guna dambeeya waxa weeye as-sabr, waa sabirka. sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala marar badan ayuu inoogu sheegay qur'aankiisa inuu macooda yahay kuwa markasta sabra. sabir haddaad ku sabirto dhibaato kusoo wajahday iyo haddaad daacaadka Ilaahay ku sabirtaba dhinac kasta ahaatee, mar kasta waxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah inuu sabro. waana ta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado addoommadiisa wanaagsan. haddaba shantan qodob aan soo tiriyey waa 5 qodob oo ka mid ah qodobada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado addoommadiisa wanaagsan. ma leedahay mid ka mid ah qodobadan aan soo tilmaamay? wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.